kamid ah ardaydii laga bixin jiray fiiga aad iyo aad baan u mahadsantihiin waayo waxaan ka faa'iidnay waxyaabo badan waxaana laga bixiyay fiigii iskoolka in badan agabkii buugtii sidoo kale qalmaan wax walba aan ka gadanay 2016 oo aan ahaa fasalka 3aad ilaa hadda oo aan ahay fasalka 7 oo 2021 alxamdulilah waxbarashada bilaashka waxay noo socotay muddo sanad iyo dheeraada marka wax badan baan ka faa'iidnay haday tahay dhaqaalaha haday tahay ingiriisiga haday tahay xisaabta alxamdulilah meel wanaagsan bayna noo maraysaa أنا أردت AB مقالة وردير waxaan kasoo kornay waxaan dhignay 4 maado waxaan dhignay xisaab Soomaali Carabi Ingiriis hal sanad baan dhignay waa ku sii daraadna oo fasal kala sii noqono bulshada aad iyo aad bay maartay ay arintaas ay uga faa'iiday waxaana maartay tusaale kuugu filan marba marka ka dambaysa inay kor u siyaadayso ama maartay kordhayso kaalinta waxbarashada gabdhaha oo sanadba sanad ka dambeeyay ay kor u sii kacayso runtii marka waxaan oran karnaa waa mashruuc runtii aad iyo aad bulshada ay uga faa'iiday kulay dadkii maadartay aad wax ka bixinayseen aad waxbarashada ku soo dhiiraday baahidii maadartay markii hore waxay hadda way taagan tahay in maarad hoos loo eego wax badan baan ka faa'iidnay oo aan wax badan oo isbedela waan aragnay intaan waxbarashada ku guda jirnay macallimiin fiican oo noo dadaashay in badan oo u diyaar ah sidii aqoontayada ay u dhisi lahaayeen ayaa noo dhigtaa runtii wuxuu ahaa barnaamij aad muhiim u ah oo gabdho badan oo daroob out noqday ama waxbarashada dhaqaale la'aan uga tagay ay maaragtay lagu dhiirigeliyay oo ay dib ugu soo kabteen inay ka qayb qaataan ama la jaan qaadaan ardadii ay macooda ahaa ay markii horeeta ay la bahalka galaaska ahaayeen wuxuu ahaa barnaamij aad u muhiim ah gabdho badan baa ka faa'iidaystay wax ka bartay oo ayagoo waxa weeyaan waxbarashadoodu liidato ama fasalka 3aad kaga tagay ama 4aad kaga tagay 5aad kaga tagay noo yimiday maadooyin fiican waa runtii waa loo soo qorsheeyo waan barnay waxa jira gabdho badan oo macnaha danyar ahaan aan iskuulada iman jirin oo macnaha ay dib ku ahayd waalidku inta badan oo fiiga ka bixiyo runtii waa laga saaciday wuxuu ahaa barnaamij markaa waalidka iyo habluuba ay ku soo dhiiradaan maadaama waxbarashada ay bilaash u noqotay way ka faa'iideen runtii aad iyo aad baa looga faa'iiday oo dad aan maaragtay kaalinta ama filka waxbarashada ku jirinba markii maaragtay oo markii horena awoodi waayay markii lagu soo daray jahliga bay ka baxeen maaragtay waxbarashadii bay maaragtay ay fahmeen dugsi dhexe bay ka bilaabeen ilaa dugsi sare ay maaragtay ay ku socdeen gabdho badan baa ka faa'iidaystay waan uga mahadcelinaynaa hay'adda Tadaamun sida ay u qiimeysay uga bixisay dhiirigelinta ay u wado ilaahayna ka abaalmariyaan leenahay insha Allah runtii dawaan uga mahadcelinaynaa 6 sanadood baan u malaynayaa barnaamijkaasi inuu soo socday iskuulada qaarkii waxay ka heleen dhisme mashruuca kan samjab iskuulada qaarkeed furniture bay ka heleen oo kuraas waxbay ka heleen iskuulada tababaray ka heleen oo joogto ahaa waxa jiray isna barnaamij la siin jiray gabdhaha qaangaarka ah ee maarta iskuulada ku jira waxaas oo dhan mashruuc uu ku amaanay runtii waxaanu codsanaynaa in mashruucaas maartay dib loo cusboonaysiiyo dhibaatadii markii hore loo aas-aasay wayba ka sii korodhay intii oo way ka sii badatay marka waxaan ku talin lahaa haddii ay suuragal tahay barnaamijkii in naloo sii wado oo dibna loogu soo celiyo inaanu maanta niraahno hay'adii waxay idin caawin jirtay way idinka tagtay halka kaga dareera hawshee deegtaas annagana waa dhabar jab bay nagu tahay hay'addu waxay soo qabatana khasaaray ku tahay insha Allah bidmillahi karim waxaanu jecelnahay halka inaanu ka sii wadno wax kasta waqti bay ku shaqeeyaan shaqadu time bay leedahay hay'adda waxay gabagaboobeen macallimiintii sii dhigaysay hawsha sii waday waxa la isla waafaqay inay sii wadaan hawshii sii wadaan
runtii mashruucan waxyaabaha uu naga saaciday waxaa ka mid ahaa run ahaantii in anagii markii tababar anagina siiya anagina inaan bulshadayadii aad ugu celino tababarkii uga faa'iideyno waxaa ka mid ahaa tababaradii aan uga faa'iideynay in hawlo badan oo iskoolka ka tegay ama duruufo soo wajahay dartood uga tegay inaan ku soo celino iskoolkii ka dhaadhicino waxbarashada waxaan oran karnaa faa'iidooyin badan ayaan ka gaarnay iyo guulo badan hadday noqoto xag arday ahaan oo isdhexgalka ardayda iyo tababaradii ay noo soo gudbiyeen oo runtii si fiican miro dhal noogu yeeshay runtii arday badan oo wiilal iyo gabdhaba isugu jira ayaa waxaa la baray qaabkii matalanba iskuulka waxqabad ama activity looga samayn lahaa iskuulladu runtii aad iyo aad bay ardaydaas ay wax ula qaban jireen faa'iidooyin fara badan buu ku soo kordhiyay gaar ahaan gabdhaha gabdhihii oo la dhiirigeliyay waxbarashada ugu dhiirigeliyay oo ay ku soo dhiiradeen waalidiintii iyo CEC-dii iyo macallimiintii oo tababaro fara badan ay siisay oo loo furay maamulka laftiisa saas oo kale aad iyo aad baa looga faa'iidaystay runtii waxyaalo fara badan oo maxay ahayd markii hore xoogaa week ahaa iyo aad kor u soo kacay marka dadku horta wuxuu ku dadaalayaa ninkii hadda 2 gabdhood ama 3 gabdhood wuxuu jecel yahay inuu gabadha wax baro waayo waa la ogaaday waxa la ogaaday inay kaalin buuxda qaataan oo reer ka qaataan gabdhuhu marka ka bulsho ahaan waanu dadaalaynaa insha Allah فيسليغاس waqtiga naloo asaasay waqti dheer bay ahayd wareeg badan baan soo marnay waxaan badan baan ka faa'iidnay wax qabad baan ka faa'iidnay wax barashaan ka faa'iidnay isku xir baan ka faa'iidnay tababaro naga nala siiyay oo yaani sidaan xirfad ganacsi u samaysan lahayn baan ka faa'iidnay dhaqaale abuur baan ka faa'iidnay lacagtaydaan urursanay aad ayaan ugu horumaray haddana aanu wali ugu jiraa hagbadina ku jiraa isticmaalaana kala daysana kala qaadana ilmahayaga arday la soo oriyo ku bixina haday tahay xaq waxbarasho iyo haday tahay xaq meheeradeed si fiican baan ugu liibaan uguna horumar haddana wali waa wadanaa sanadkii saddexaad baan noo socdaa waana sii wadaynaa hadda bakhaaro raashin ayaa noo furan oo wax yar oo nala ka caawiyayaan wixii baan ka soo saarnay business sidii nala ku soo tababaray hore nala ku soo tababaray walna waa noo sii socotaa insha Allah bismillaah kariim hadii mashruuci dhamaadana wax anaga naga dhamaanaya maaha